Dhegaystayaasha nagu xiran oo ku soo dhawaada warbixintan oo aan ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska oo maraakiib dagaal isku hordhigtay gacanka Jersey oo goob jasiirada ah oona khilaafkooda xudun u ah. Wadahadaladii khilaafkan in xal looga gaaro la rajeynayay iyagana bataatanba soo xirmay. Khilaafkan ayaa noqonaya kii koowaad ee soo ifbaxatan iyo markay dowladda Ingiriiska dhowaan isaga baxday Midowga Yurub. Labada quwadood ayaa midba midka kale xaggiisa wuxuu u soo diray jasiiradan maraakiib dagaal iyada oo ayba dowladda Faransiiska ku baaqayso in xayiraad dhanka kalluumaysiga ah lagu soo rogo dowladda Ingiriiska iyada oona baaqeeda saldhig ugu dhigtay in dowladda Ingiriiskaba ay ka mamnuucday kalluumaysatada reer Yurub in ay baddeeda wax far ah soo saaraan oo ay ka qaataan kalluun amaba kheyraad kale. Arrinkan oo sababay kacdoon dhanka shacabka ah ayaa kalluumaysatada Faransiiska waxay ku banaanbaxayaan ku dhawaaqayaan in la joojiyo aan ku noqdo halkaasi. Kacdoonkan ayaa sababay banaanbaxyo ay sameynayaan shacabka dowladda Faransiiska iyagoona ay ku dhawaaqeen in ay go'doomin doonaan kalluumaysatada Faransiiska ayaa go'doominaysa jasiiradahaasi wixii geli lahaa oo u gudbi lahaa oo badeecada oo ka imaado dhanka Faransiiska. Wargeyska afka dheer ee The Guardian ayaa qoray in laba maraakiibta dagaalka ah ay dowladda Ingiriiska u dirtay jasiiradahaasi. Laabadan ayaa timid kadib markii ay ku dhawaaqeen in Faransiiska ay go'doominayaan jasiiradahaasi. Jasiiradahan ayaa hoostaga xukun ahaan dowladda Ingiriiska iyaga oona dhul ahaan u jiro 22 kiiloomitir oo keliya bariga dalka Faransiiska. Boqorada Britain ayaa iyana waxay u soo magacowdaa jasiiradahan barasaab uga wakiil ah oo maamul ahaan si ay hoostagto dowladda Ingiriiska. Jasiiradahan ayaa afka looga hadlo waxay tahay luqadda Ingiriiska iyada oo taariikh ahaan marka dib loo jaleecana laga qabsaday dowladda Ingiriiska aan iraahdee taariikh ahaana marka dib loo jaleeco gobolkan ayaa gacanta dowladda Ingiriiska ku heray kadib dagaal ay dowladda Faransiiska ku qabsatay gobolka Normanda oo hadda dhul ahaan hoostaga dhulweynaha Faransiiska kana tirsanaan jiray dowladda Ingiriiska. Jasiiradahan oo dhul ahaan aad uga fog dowladda Ingiriiska maamul ahaanse u hoostago ayaa waxay ka baxsan yihiin xuduudaha ay kala calaamadsadeen Britain iyo Midowga Yurub kadib markii Britain ay isaga baxday Midowga Yurub. Jiritaanka maraakiibtan ay dirtay dowladda Ingiriiska ayaa lagu tilmaamay jawaab xanaaq leh. Dowladda Ingiriiska ayaa ku tilmaantay hanjabaadaha uga imaanaya dhanka Faransiiska in ay yihiin kuwo aan loo dulqaadan karin. Kadib markii wasiiradu Faransiiska ay soo jeediyeen in la jaro korontada jasiiradahaasi oo ka imaato dhanka Faransiiska. Korontada dhanka Faransiiska ka imaadaysa ayaa waxaa sabab u ah sida aan warkeenaba ku xusnay iyada oo jasiiradani ay 22 kiiloomitir oo keliya u jirto dhulweynaha Faransiiska ee dhanka bariga. Hanjabaada ay direen kalluumaysatada Faransiiska oo ah haddii ay Ingiriisku joojin waayaan ama ay u ogolaan waayaan in kalluumaysatada Faransiiska ay ka kalluumaystaan xeebahaasi ay go'doomin doonaan jasiiradahaasi oo taasi oo dhib ku noqonayso shacabka ku nool jasiiradahaasi oo dhibaato weyn kala kulmi kara go'doomintaasi. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ka digay xayiraad ama go'doomin lagu sameeyo jasiiradahaasi isaga oo tallaabadaasina ku tilmaamay tallaabo aanan marnaba sax noqon karaynin. Maraakiibta ay direenna wuxuu ku tilmaamay kuwa la socon doona dhaqdhaqaaqa jasiiradahaasi. Hadalka maraakiibta oo loo fasirin karay mid xoogaa dabacsanaan muujinaya amaba xeelad dhanka militariga ah. Annick Girardin oo ah gabadha wasiiradda Faransiiska u qaabilsan dhanka kalluumaysiga iyo badaha ayaa ku tilmaantay tallaabada Ingiriiska inaanay
marnaba iyagu cabsi gelin karin, oo ayna aad uga xumaatay qaabka ay wax u wado dowladda Ingiriiska. Sheegtay Faransiiska in ay diyaar u yihiin in ay ka jawaabaan arrintani. Wasiiradda ayaa la weydiiyey in wax tallaabo oo argudasho ah uu qaadayo Faransiiska, waxayna sheegtay haddii wax tallaabo oo argudasho ah loo baahdo in Faransiiska uu jari doono korontada laga helo gobolladaasi aan yiraahdee jasiiradahaasi, waana nalba laga heli doonin haddii wax tallaabo oo argudasho ah ay u baahdaan. Xiisaddan ayaa hal mar si lama filaan ah heerkii ugu sarreeyay gaartay. Dhanka Ingiriiska ayaad moodaa xoogaa dabacsanaan in laga muujinayo iyadoo ay jiraan isku dayo lagu yareynayo walaaca jira. Xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo Dominic Raab iyo xogayaha arrimaha ganacsiga ee Ingiriiska ayaa waxay la hadleen dhigooda Faransiiska, iyaga oona u caddeeyay walaaca ka jira dhankooda. Warbaahinta dowladda qaarkeed ayaa laga soo xigtay in ay diideen dhanka Faransiiska kulan dhex maro wasiirka deegaanka ee Faransiiska iyo wasiirka badaha ee dalka Ingiriiska. Gobolka Normandy ee dalka Faransiiska oo horraantiiba Ingiriiska laga qabsaday ayaa xiray xafiis ay dowladda Ingiriiska ku lahayd gobolkaasi oo laga maamuli jiray amaba u lahaa jasiiradahan Faransiiska. Qarniyadii dhexe ee miilaadiga ayaa dagaallo waaweyn waxay soo dhex mareen labadani dowladood ee quwadaha ah, iyada oo ay horaan u dhacday in dowladda Faransiiska ayba wada qabsatay dowladda Ingiriiska, inkastoo dowladda Ingiriiskana gobollada hadda ka tirsan Faransiiska ay horaan u haysan jirtay. Wararkan iyo wixii kaloo warar ee nagu soo kordhaba waxaad kala socon doontaan barteenan. Fadlan nagu xirnaada.